waxaa kale oo inagu cusub gariiqaanadii la soo taliyeen inay soo saxeexeen oo soo qoreen magacyadoodii saxeexay anigoon xildhibaanada saaxiibadaya ee guddida ku jira waxba ka sheegay haddana israacsanaantooda saluug baa iga galay oo intaa in ka sal ballaaran dad ama xisbi ka soo wada jeeda ama hoos u haasaabo weeye aqoontooda iyo garashadooda iyo ragnimadu waxba ka sheegi maayo laakiinse waxaa lagu niyad samaan lahaa haddii axsaabtoo dhammi ka wada muuqdaan taasi waa ta kale mar haddii garyaqaanadii ay magacyadoodii keeneen dee talada xisb waxay siiyeen golahay siiyeen talada la taliyayaashu sharcigu golahay u shaqeeyaan shurgudoonkana uma shaqeeyaan guddina uma shaqeeyaan maadaama ay taladoodii dhiibteen taladoodiina halkan lagu soo lifaaqo oonu naqdinno oo waxay ku saleeyeen taladooda aan ogaanno annaba garyaqaanaannu leenahay ayaa habboonayd waana mid mustaqbalka loo baahan yahay marba haddii shurgudoonku ama goluhu igmado garyaqaan taladaa uu bixiyey golahoo dhan baa leh shurgudoonka gaar uma aha markaa taana in lagu soo daro ayaan jeclaan lahaa waa in sunno inoo noqoto gebigeeduba maanta iyo wixii ka dambeeyaba haddii dee ilaahay inagu simoba ta kale sidii raggii horeba ka hadlay xeerkani wuxuu tilmaamayaa qaab dhismeedka xisbiyada xisbigu ruqsad qaran ayuu haystaa qaab dhismeed buu leeyahay shirweyne lagu ansixiyey golo dhexe lagu ansixiyey guddida waxa la gudboonayd intaanay ka hadlan qaab dhismeedka xisbiga inay soo qaataan koobi xeerka xisbiga ah oo ay ka heli karaan guddidaa maanta aynu samaynayno ma aynu dee toosinayno qaab dhismeedka xisbiguna waa kaa ee sharciga ah ee goloweyne lagu ansixiyey ee shirweyne lagu ansixiyey dadka ansixiyeyna waxa weeye afar laabkii golahan dad fadhiya ama shan laabkiiba ayaa ansixiyey wuxuu qoran yahay hay-adda u sarraysa waa shirweynaha halkan kuma taallo shirweynaha xisbiga golaha dhexe guddiga fulinta hoggaanka xisbiga garabka haweenka garabka dhallinyarada guddida gobollada guddiga degmooyinka tuulooyinka iyo xaafadaha guddiyada laamaha dibadda halkan waxaad mooddaa in badan oo intaa ka mid ah inuu xeerkani xaaraantimaynayo xeerkan waxaad mooddaa si dadban inuu amangaraynayo wax ka beddelayo xeerkii axsaabta markuu isagu soo koobo uu yidhaah hoggaanka xisbigu intaasuu noqonaya waxa weeye inta kaloo dhammi sharci ma aha dee taasina xisbiga ma qabato amendment xeerka xisbiga cid amendment ku samayn kartaa ma jirto xisbigaa iska leh guddidan waxaa loo sameeyey inay amangeliso maaha xeerka xisbiga waxaa loo sameeyey mabda'a loo sameeyey inay ku ilaaliso axsaabta in hawshooda ay daahfurnaan iyo dimuqraadiyad iyo wada tashi ku salaysan yihiin oo dastuurku tilmaamayo wixii waxaa ka sokeeya waa farsamo mabda'a ugu weyne lagu ilaalinaya waa kaa waa daahfurnaan dimuqraadiyad iyo wada tashi inaanu nintoocsi noqon inaanay kooxi la wareegin inaan xubnaha lagu gafin marka xisbiga imika xeerkan wuxuu xaaraantimaynayaa qaab dhismeedka shirweynihii xisbiga lagu ansixiyey ayuu in badan leeyahay waa xaaraan taasina dee xisbi xaq looguma laha looma dejin karo dee iyana doonatay ahayd marka hore ood u raadsato iminka tani waa fatwo waayahay tani waa fatwo waxaa la leeyahay xubin waxaa loola jeedaa xubin ka mid ah hoggaanka xisbiga guddiga fulinta iyo golaha dhexe salkana xisbigu wuxuu ku hayaa waa shirweynaha iyo taageerayaasha xisbiga waaba laga tegeyba lama soo qaadin waxaa kaloo la yidhi hoggaanka xisbiga waxaa loola jeedaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka xogeeyaha guud ee xisbiga raggii kale mee inta kale marootiba yaa awoodu siiyey iyagu inay hoggaanka xisbiga cayimaan oo yidhaan intaasuma noqon karta
حزب قد اسمه يسوون مدح بنايا وحلقوا إلى علينا يا مبدأ لقوا إلى أنا ودافران ديمقراطية يضطش قضب كا يعني سيحوا تشينا يحق دموع حلقوا قري حزبنا سوى ما قد بينكروا قاب بسماد كدوان كهالك نقول شيء ولا حرنتمي ده لما حرنتمين كرو قددوا أنت أسمعوا السارنت مركا أنا وحن قبع قضب كاسي واقف وأنا أمن من حير كل سمية أو طاقتك كسوق لي طاقتك كسوق لي الباك كسوق لي مركا أنا وحن قبع قضب كاين لقى صاروا ماشي وجانك حزبك هدي له سوق هذا أيو ترديسة وكهالك أقول قرن إيش روينو أنسحيي إيه قولها نحسيي إيه جودي ذا ديوان قال أنت حسابت أقبل شيء إيه هيسته أي كم ركعضي ما هل كان الله يمن الله وهل كان الله ورا الله ورنا أنسحيا جودي باتشوك جودي دي كاسة هيسته أو يقبل شيء كل شيء قيسا كا جودي ده هيسته كل شيء قيسين لسور دكتة هاي إيه مثال كان لقى أبو رمها حقنا وجمرها وأنا جف حسابتي يدي مرادي دلوقتي فيه مركا وحن تشيدين إن إلا الصحة أنا حير كالله باسكرين إلا جف كدستوري جا كتير لقى صار وليه بحق ضم لقات كي يا هو جان كحزب وشيء يا وقلب ككوبات وجان كحزب جوا كال حزب أنسحيي شروينو أنسحيي أي جودي ديوان قال أنت حسابته كم ركعضي أي أقبل شيء أي هيسو أي حزب وكل قيسو أي حزب وكنتروليس وكاوي لكن سين هل كان أفر قفل قصوا كوابو ده حق لهم مرة ما نذكر واضح صحيح اللي باكو بو قالوا تاعي وابو حسبك كاينو كهض الى waxa weeye xilka qaranka ee ururada iyo asxaabta marka waxa weeye isla qosayso waxa rasaas wada xisbi xildhibaanku ma sayahay haddaba naadan ku saxo waxaan ka hadlayaa halkan way isqusaysaa halkan lagu tilmaamayaa hoggaanka xisbigu intuu noqonayo halkan lagu tilmaamayaa ma fahamteen kana waa sharci ama xisbigu ha sameeyay ma aanu sameeysan guudidii diiwaangelinta axsaabta ka marakacday oo ansixisay oo aqbashay oo xisbiga ku kontaroosha wuxuu xisbigu shacabka ku haysta ma faaraco wad salaamantay waayahay waliba markaas lagu sii daray ta'yiid kale oo la yiri xisbina ma keeni karo qaab dhismeed ka duwan sidoo xeerku tilmaamayo daaqada laga soo galay albaabkiina waa la xidhay waa dam waayahay taasi waa taa kale xildhibaanadii iga horreeyay la qabaa dee guddidana way shaqaynaysay waana jirtaa laakiin sidee waa fadhi حتى واجب كودي ويقولون كل وين ما أنتي دويتي أنا شروينا شركة قلاع ده حزب قلاعين ورقده في شلال لوجي قف كمو إيمان واحد قد شلان وأنا ما كي كم خاتي كعلها قام ذا لجاري هنا يستحيين شركة صدق شيء باللغان صحيح حزب يقول حليه هي ميزانية يو وصار حد أي شروينا شركة قلاع ده سوى شيء دي حسن حسين بس سوى شيء دي ودرس كميزانية ده يحسب حدك أنتي هره عدبة لقوم بالمري هنا يقاطان أو يكون رقان حسبك أو يراهدان تاسان يكون كنترول نووي سوما حاضرين مشرحين تعدبة لقوم بري واللعدي لبضا مشرح سيدو حيركو تلماميو وحيابها لعديو يشروينها لقو عديو كوبي بقى لو ديرا أو لسيا كوبيغا iyo xeerka ayay xisbiyada ku controlaan shaqadoodu waa taa halkan lagama hago sida xisbiyada u controlayaan midaas waa midda waxa timi guddida waa la bedelay gabigeediiba waa la dhalan rogay waxa weeye waxan waa xisaab saddex xisbi baa loo garsooraya ama ha ka wada maqnaadaan meesha
أما كود جرا قرأ الله يتقناه أما كود مقنعه أما كود جرا مدحوينه لما شاربوه وين وقدومي حسبي marka arrimaha xisbiga laga hadlayo isaga iyo Faysal iyo Cabdiraxmaan waa isku mid waa isku protocol waa isku awood wuxuu dheer yahay kursiga madaxweynaha maalintu labada kala qaado uu gudoomiye xisbi isagu wareejiyo gudoomiye xisbiga ma soo magacaabo mabda'una waxa weeye waa saddex qolo oo loo qarsoorayo saddexdiiba waa inay ka wada maqnaadaan ama ku wada jiraan taas waa point labada xubnooda shirgudoonku soo xulay shirgudoonku institution gaar ah maaha waa golaha wakiilada ayuu odageedii yahay waa odaygii golaha wakiilada ee awood gaar oo ka baxsan golaha ma laha goluhu ku metelaa markay arrimaha dawladda timaado goluhu ku metelaa marka cid dibadda la kulmaayo ee isagu awood gaar ah oo la yiraahdo labada xubnood soo xulo male goluhu waa golihii goluhuna laba isku heli maayo waa mabda ragii horena ka hadleen inaad ansixiyo noqoto iyo inaad magacaabo noqoto labada mid ku ekow ama ansixiintii laga qaada oo guurtidii meel daran u wareejiya meel daran ka astaghfirullah guurtidii meel kale u wareejiya ama aynu ku ekaano inagu ansixiinteenu leenahay ansixiintu ku ekaano labadaana golaha in laga qaado weey waxa yimi hal xubin baa la yiri ururka qareenada had iyo jeer waxa lagu soo qoraa xubnaha loo dooranayo ama loo magacaabayo xilka waa inuu ku jira xubin garyaqaani baa la yiraahdaa xubin garyaqaani inuu ku jiro cidii doontaa soo xusho marka aan waxaan qabaa yaana iyagu soo xulin iyagu yaana soo xulin iyagu institution dawliya maaha sharcigoodii ma hayno yaana iyagu soo xuline dadka soo xulaya hal la yiraahdo lagu qasbanaa waa inay ku jirtaa xubin garyaqaani iyaga halka lagu daayay aan la oran idinku soo xula waxa kale oo sheegaya in la simo xisaabta marba hadii la yiri saddexdii xisbibood ee madaxweynaha baa magacaabaya waa xisbi labadii xisbina kama qaadaan ma madaxweynaha inuu xubin la siiyo isagoo hoosta laga lifaaqayo inuu yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye axsaabtana la siiyo mid xisbu la mid la siiyo taana waan soo jeedinayaa waa sakadad bahash waayahay waxa halkan aan ku arkay principle sharci baa jira oo la yiraahdo qaynuunku dib uma noqdo waxa lagu dhaqaa maalinta la ansixiyo ee golayaashu ansixiyaan in madaxweynuhu saxeexo u 22 ku dhaqan golo gudahood wixii ka dambeeya ayaa lagu dhaqaa halkan waxa taala aan la soo bixin yar ii samra sidoo u qoran yahay idin akhriye waa qodobka 12aad faqradiisa koowaad waxa oranaysaa qofna isuma sharaxi karo musharax madaxweyne ku xigeen madaxweyne laba jeer wax ka badan imika bilaabmaysa imika maalintu dhaqan galo ayaa la bilaabayaa labada jeer ee wixii ka horeeyay xeerku ma tilmaamayo xisbiga ya waxa kaloo ku jirta qofna ma qaban karo xilka gudoomiyaha xisbiga laba jeer wax ka badan muddadii uu xisbigu jiray ucid waxay jirtay ilaa 2003 ma taasaa loo celinaya la doonanaya waa adiyad weey
نمبال مركا لرات سنة أحمد هسه هذا مواد كون حيرك جوديس اللي وقف هو حرامي إن اللي وقف حيرك جوديسه تنوع واحد نمبال تارجت جرينيا أنا أقول ملهي يعني هاوشي سوى وناكسن تتهاجلي ماي لكن سوى شيء يوم حقه قول لي هي إن أنا حيرك اللي وقفين وحلا لي هي 2003 جيب الله قصوا بلا بيا حزبك لا بتشرح قبل ما قبل كرو حيرك إنه وحلا بلا بيا ما أنتوا أنصحوا إم بدحوينه صحيحه وكوبي لا وتم المود ده تكوير قالوا اللي قصوا صاروا حيرك اللي قصوا صار يشري جزيتة اللي قصوا صار يشري ما أنت أساك كوه 2003 يجي حير كني كمان نقون كرو لما نعلن كرو هذا دنين نودن الله وكا وياي waxa kaloo iyana meeshan ku jirta tii baarista timi xisbigu uu isbaaraa waana la baari karaa dantaana ku jirta danta ayaa ku jirta waxaynu nidhi xisbina urur shisheeye ama dawlad shisheeye lacag kama soo qaadan karo sida kale lagu ogaan karaana waa baadhis ayaa lagu ogaan karaa halkan waxaa lagu soo koobay keliya qaadhaanka dawladdu ay siiso xisaabta ayaa baadhista lagu soo koobay kaasi waa sharci waana dawd xisaab xidhna waa la celiyaa waana la cayimay waxa loo isticmaali karo inkastoo ka fiicinayd in intaa laga ballaariyo oo baahiyo badan baa soo baxa baahiyo intaas un maaha baahiyo badan ayaa soo baxa in xisbiga gacmaha laga xiloodaamo intaa mooyaan wax kale kuma isticmaali kartid waa yar qalooc waxa ka reeban inuu campaign xisbi ku galo lacagta campaign xisbi inuu ku galo ayaa ka reeban laakiin hawlo badan oo xisbigu leeyahay oo koraya oo baahiya ah ayaynu afka ka xidhnay taana in sida laga bedelo ee lagu daro iyo baahiyi kale ee loo arko inay daruuri yihiin baahiyi kale ee loo arko inay daruuri yihiin waa kan xasan baa jooga waa qasab waa loo gudbiyaa guddida waliba wasaaradda ayaa ay ka dhaxaysaa xiriirkaas iyagii wasaaradda ayaa ka dhaxaysaa hanti dhowraha guud iyo hanti dhowraha iyaga wada shaqayn bay leeyihiin marka baahidaana inaan lagu soo koobin kirada ijaarka iyo howlwadeennada baahiyo kaloo ka badan baa iman kara xisbigu wuu korayaa wuu isbedelayaa taana waxa la leeyahay markaa in loo ogolaado baahiyi kale soo baxa xisbigu wuxuu leeyahay xiriir dabadeed xisbiga kulmiye wuxuu heshiis la galo ula shaqeeyaa xisbiga Itoobiya xukuma oo shirarka xisbiga lagu marti qaadaa shirarka xisbiga Djibouti waa lagu marti qaadaa xisbigeena xaq wuxuu leeyahay inuu xisaabta caalamka la samaysto xiriir imika baan wada leenahay in markaasina si daahfuraana ay noqoto xisbigu waa qasab talada dalku u soo socdaa inuu caalamka la socdo weeye imika waa la ixtiraamaa markii safiiradu yimaadaan markii wasiiradu yimaadaan toos bay ula kulmaan xisaabtoo dhanba iyagoo doonaya inay dalka u noqdaan xogogaal xisaab badan oo caalamka aanu la soo samaysanayna xiriir markaa taana in sidaa lagu baraarugsanaado oo la yidhaahdo dee xisbi walba way u furan tahay lacagtaa nafteeda waxaa noqon kartaa safarada loogu baxayo xiriirkaa dabadda ee xisaabta caalamka ee dantu inaga dhaxayso lagula kulmayo xisbigu wuxuu la kulmo oo tagaa baarlamaanka Yurub waanu tagna waanu ka qayb galnay
markaanu tagnana dee waxaan u hadlaynaa waa Somaliland visibility baanu siinaynaa Somaliland telefishinadana laga arkayaa su'aalaadna la weydiinaya waanu hadlaynaa waxaanu hadlaynaana dan xisbi maahay wadan Somaliland qarash baanu u baahnay ma dawladdaanu soo barinaa dawladdu wufuud ay dirayso miisaaniyadooda waxa laga bixiyaa miisaaniyada dawladda tigidhadooda iyo hudheeladooda halkaas laga bixiyaa isku danna waanu u soconaa marka taana in lagu baraarugsanaado oo hawlaha la leeyahay daruuriyaadka in lagu daro aan la soo xidhin taana taasaan ka leeyahay waxa kale oo leeyahay waxa timi guddidu waa guddi maamul guddi maxkamadeed maaha jurisdictionkooda kuma jirto inay xukun ridaan xisbigii ay ku kontroolayeen hawlaha ganaax bay leeyihiin ama lacageed ama canaan ama ceebayn ay saxaafadda ka hadlaan oo yidhahdaan xisbigaas iyo waxaas ku qaldan yihiin muddana uu qabtaan inuu ku soco laakiinse xisbi baanu fursaddii kala noqonnay xisbi waxaa tirtiri kara uun go'aan maxkamadeed go'aan maxkamadeedunbaa xisbi loo codeeyey oo xisbi qaran macnaheedu waxa weeye ummaddaa leh dadka qaadhaanka bixinayaa leh dadka u codaynayaa leh xisbiga helay 50% codayntii haddaanu kulmiye ka soo qaadno cidda tirtiri kartaa waa ayaan maxkamad ahayn cidda tirtiri karta ee awood loo siiyey odhan karta xisbigaas xisbi qaran ma aha waa maxkamadu eedaha haddii loo soo jeedinay maxkamad iyo xeer ilaalin baa soo jeedinaysa isaguna iska difaacaya laakiinse nin halkan inagu ka ansixinay oo inaan siinin awood sharciyeed uu cid ku maxkamadeeyo inuu dee hoosta aynu u gelino maaha nidhahdaa adaa maxkamadayn kara waa dembi taas axsaabta caalamka waa la xidhaa dalalka dictatorshipka ayaa isticmaalataa meel baa loogu soo dhuntaa wax yar baa loogu soo dhuntaa teerkii waxaa ka dhacay wadanka arkay axsaabtii baarlamaanka lahayd ee kurdiyiinta in kolba laga xidhayo meesha loo xisbi ma tihida waxa tahay argagixisaa tahay haddaynu taa sii dayno xisbi jirayaa ma jiro xisbi jirayaa ma jiro marka la isqoonsado baa xisbi baa laga xidhaya haddaynu fududayno weeye iyaynaan fududaynin xisbigu ma aha shirkad ganacsi oy wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda ganacsigu ruqsad siisay oy kala noqonayso guddoomiyaasha axsaabtuna maaha mulkiilayaal shirkadood ma laha xisbiga iyagu ma leh xisbiga dadka xubnaha ka ah ayaa leh yaan loola dhaqmin sidii maamulayaasha shirkadaha oo dhinaa ruqsaddii baa laga qaaday cashuurtii baad bixin weyday waxaa ka qaadi kara un maxkamadun baa ka qaadi karta ta kale waxaa jirta waxa la leeyahay iminka xeerkan waxa keenay gebigiisu mabda keenay waxa weeye 10 sannadood ayaa dhamaanaya 10 sannadood sidii ku yimaadeen waynu ogeyn arrintu halkaa kama bilaamaysa arrintu waxa ka bilaabantay markaynu xisaabta 3 kaliya ku soo koobnay halka dawada u baahani tani waa stop gap halkii un baynu dib u dhigaynaa dalkan 3 xisbi ma anfacdo kuwan jooga iyo kuwa dambe toona ma anfacaan haddaynu arrintaa xalinayno xal intaa ka weyn ayay u baahnay waxayd guddoomiye inaanu guddi heer qarana abaabulo oo aynu idhaa maxaa laga yeelaa tiradan horta marka hore tirada maxaynu ka yeelnaa inama anfacdo taa waa la isla wada ogyahay waan qirayaa xisbi baan madaxdiisa ka mid ahay 3 xisbi ma anfacdo markaa laakiinse waxa dambaa la mooday waa nin faras dabadii ka degay waxa ahayd wixii lixda madiina soo qabsaday inuu ka cararo qaabo badan oo xisaabta loo yareyn karo iyadoo waa dimuqraadiyadda meel kaga jirto in 3 xisbi dalka ka soo baxay dimuqraadiyadda meel kaga jirta laakiin indhaaynu isqabanay danbaynu ka liftay waynu ku soo meel gaadhnay
إننا نسي ودنا ده معها إلا آمنوا ده إننا نسي ودنا ما أنت صدق ذات ما عندنا سيدا سما الله غيرين دونا نما نصدق ده بدونيني قعموك حرين قعموك حرين وهالكاغا فدوي فدوي هالكاغا فدوي أدوها وإن قاب كله كردين لها لقى الله دراسة بوبهانت تلوين بدن بعد اسمين ناوي دين إنه قلوهني أجاسمه هي أنت إنه حير كان تدشينه إنه قلوهني أجاسمه يروار محن إنه قصقنا أمضى دراسة إنه سميني وعدة إنه قدم بيساكون رقمته حياة بدن بالله سمية threshold بالله سمية جيرماني أوكله threshold بيلين 5% حسابته حساب قرار مو نقطه حساب قبل باكريسا حساب قبل أي كريسا أو قبل كشغيس دلكم ما أنت وكلتين politically economically قبل الله هذا يباشره قبل الله سوى حد درينسين ده هو ذي نهر الجيس لك هذا واحد درينسين سجل الحسباء إن أنا أهمية سين ده هو ده ودرون ودرينشله لما تفير كرو إيدا ده ينادرو إيدا ينادرو إيدا ها وياي وحوي مركا ما تروين حير كانوا بكذلتي حير كانوا بكذلتي أحساب تصدقون إنه قط ما هي إن لقى بديو أو threshold لسمايو أو يشان لحظة ضوين تنقرين النقدان أحساب قبلات إن الجديد ما أحساب قبلات أو نترتمين قلياشة أو ترتمي دون الديجان كقبل كار صدق هذا لك صار يا مش السوركم مقرون با صدق هذا لا من قرينا يا ترى هذا لك صار يا مش ترى هذا لا من قرينا يا طريق الأمر يا واقع ورد كاسين واقع ميدا كله وأن يروك كله بدو بيوحي نوهر دي رمضان أنتي تضمن معلومات بكاري عيد كاي يلي سر رمضان هلا شقينا إلهي بكت عيد كاي يلي سر رمضان بالله شقينا وأن كوش شقي مكبا ما ولا لين نشقينا رمضان ما تشرو وهي وحن وضع مركا وحن لا هاي وارينو تضمن معلومات نوهر دي هوشن أينان دمين كرين النجو هؤلاء دمين كرين لما بلعبوا النجو غورتي دي بجارسين أما غورتي ده جارسيني أيه ماشي لوك لتري حير قبيعة إنه كترنا أون غورتي دي جارين أون متحويني جارين كل عصب بايمي أنا هو مرة والبوحان قبائن كلها عصب لود دايو أون لقى باقين لود دايو كلها عصب من لقى باق تكلين قبا وحويه تكلين قبا وحويه مر هدينا إنه دمين كرين مر هدانو قدومي أنتوا قولهم كسر نقطة قولها إن هدي وحلا قد يلوح كبدلي كرين مر هدي مدحوينا كسر نقطة قولها أنا طابن كرين وبالصدح لقوم يقول هاو شنو يطلع وقت إن عريضي أنا مشرو أو هاو هراي أورهذا ديسمبر 2022 وديسمبر 2022 وحما أنت أمها وحسنت كان أمها بشي أفراد من كشرة إيه سنتك سديت بلود بسنتك كاري إيه سنتك خضر وسنة سديت بلود فلاadي lagu taagan oo la leeyahay war iska siiba ma fadhiisan kartaana ma jirto markaanu timing kana saasan warka ta kale doorashada madaxweynaha waxa ka dambaysa muddada ruqsadda xisaabta ka dambaysa bil bay ka dambaysa bil ayay ka dambaysa ka hor dhici mayso durba waxa jira dareeno dhashay baa jira oo la leeyahay waxa loo gogol xaarayaa doorashada madaxweynaha in dib loo dhigo haday taasi dhacdana labadan xisbi way ka dhamaanaysaa ruqsadii kama qayb gali karaan doorashada madaxweynaha dad badan baa qaba waxa loo hamiyo dig leeyahay inaanay xisaabtani ka qayb galin doorashada madaxweynaha
haddii aanay jaranjaradaa ka boodin waa ra'yigayga hay cabudhinin waa ra'yigayga waxa ila muuqata weeye waxa ta kale xisbigan ilaa maalintii ka dhamaanayso saddex xisbi ilaa maalintii ka dhamaanayso December waa xisaab qaran uma baahna in la yiraahdo waxa tiina xisaab kumeel gaara iyagu sidooda ay ahaanayaan 6 bilood ee ka horeysa waxa la bilaabayaa abaabulkii ururada ayaa la bilaabayaa iyaga hawl taala ma markaasi aliyaala si loo soo gaabin karo 10 sanadood ee xisaabta u furan ama daaqadha laga soo galo ama dhulka hortiisa laga soo fuuro ma jirto lamana yareyn karo waxaana gudoomiye golaynu nahay yaan la isku ceebsanin saraaxada yaan isku ceebsanin cidna kuma gafin anu ra'yigayga dhiibay saraaxad baan anu dhiibay yaan la isku ceebsanin waxa la soo jeediyana de sidii qaalibka ahayd yaan dhagaha laga furaysanay lagu daro talada wassalaamu calaykum